maanta waxaanu joognaa magaalada Kinshasa ee Democratic Republic of the Congo oo uu madaxweynuhu ku yimaaday safar isagoo la kulmay madaxweyne Felix Tshisekedi oo ah chairpersonka African Unionka labada madaxweyne waxay ka wada hadleen arrimo la xiriira xiriirka labada dal iyo xoojintiisa waxay kaloo isla soo qaadeen arrimaha ka dhaxeeya oo uu hadda hoggaanka u hayo madaxweyne Tshisekedi oo ah African Unionka iyo kaalinteedii ay ka qaadan lahayd arrimaha Afrika ka taagan magaaladan Kinshasa ilaa iyo intii uu madaxweyne Tshisekedi xukunka chairpersonka uu qabtay waxa imaanaya wufuud kala duwan oo ka socota dalalka Afrika ay hogaaminayaan madaxweynayaal kala duwan safarka madaxweynaha kama duwana safaradaas ay madaxweynayaasha kale ku soo gaareen